بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دمان dadka halkan fadhiyo ugu horeeyay kolleegayga wasiir Dube xildhibaan Cabdiraxmaan agaasimaha madaxda hore gobolka madaxda shirkadaha madaxda jaamacadda dhalinyarada aan maskaxdooda iyo maaragtay intellectual properties kooda inay fursad loo siiyay inay hal abuur keenaan oo hadda dadka aan martida u nahay kulligiin iyo dadka bulshada reedka ka socday bangiyada kulliga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fiid wanaagsan yani aad ugu faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galo munaasabadan qiimaha badan symposiumka lagu soo bandhigayo ardayda by the way dad researchers oo graduates ama postgraduate kuma jiraan oo maleena waa undergraduate student symposium marka innovation-ka adduunyada waxay ku kala tagtay waa innovation iyo hal abuur innovation hub jaamacadda Doomiye Maxamed Yuusuf waa meeshan si fiican baa anaga dhan noo dhiirigelisay laakiin ardayda sida cusubuna oo sheegay hadii ay jiraan grants ay diyaariyeen financial institutions shirkadaha ummadda la nool oo social responsibility ka qayb qaato ama arrimaha bulshada sida hadaato loo dhahay heestan oo ku jirtay adigana waa tiri dal ma kici karo hadii aanan aqoontu iyo ogaalka iyo hal abuurka uusan hagin sida daraadeed waxa loo baahan yahay innovation hub in la sameeyo hilmaami hadalku ma jiro IRIS jaamacadda SIU labadoodaba macnaha wax aad u qiimo badan ayay sameeyeen علمينا مركو إله ليه وما أوتيتم العلم إلا قليل من آدم وحير بيجرنا يعني هذا كوفيد كبانديميك the last 3 years was testing 2020 الدنيا ولا امتحاني ولا تصي لكن وحاول وحصل من تريجرين وحاول هالأوركا jumping إنه رعو أما أودع محل وحن كعظون إنه رعو technological digital يعني revolution إنه رعو marka la tusay bin aadanka sida ay daciif u yihiin marka saas la dhahayo mar walba space la furaa wax yara idin la baraa la leeyahay idin la sii idin la bidaamay marka space furan falyatanafis almutanafisun meelaha marka oo space kaas ku soo bixi karo whether you are in low income country or high income country Canada hada wax ka baranaysa Harvard hada America ka baranaysa hada Cambridge ka baranaysa does not make sense adduunyada knowledge contribution ma sameyn kartaa waxa daad ku jirta hal abuurada علف لصو سارايا حيواناتنا معناها دبكا او food insecurity ku jira ayagana calaf insecurity qabaan marka intay naga dhiman lahaay in la soo saaro waxa la marka loo water biyo la'aan ma la dhamis biyo yar lagu soo saara jaamacadda Malaysia dhiganayo waxa laga fikirayay bariiska maadaama food insecurity gabaabsi cunni adduunyada maadaama ay ka dhici doonto 8 bilyan oo adduunka joogto in loo soo saaro bariis ku filan Asiaanka jaamacadaha grants dawladda Malaysia dawladaha Asia ku bixiyaan grants aad u badan jaamacadaha waliba waaweynka marka waxa la dhahaa waa national security book dadkan hadii la qoodin waayo cunto siisan weysid yaa dad u tahay hadaad adeeg siisan weysid yaa dad u tahay yani dadkaaga waa inaa wax barataa basharkaaga qiimo ku leeyahay waxa la dhihi jiray marka jaamacadeena faculty-ga oo health science ko aan takhasus ka diyaarinahay iyo faculty-ga agriculture ka isku dhagan waxa la dhihi jiray حلقة الوالوة innovation على كين أول ده rice production in low water setting أنا كمقطع جوهر إيميل بدن على ده وزير دوبة بريسك بيحكرا لكن جورجا بريسك عني لهذينها كسو صارت معناها dripping low water setting rice production اللي هو سميسي الدنيا اللي هو ده فيه كراي مركا حتى مركا علف كأركي يسوي حسوسي سموقتها innovation حبنا وحال ده وإيجوا ده ديسين لكن إس حسوسي وإن physical space la sameeyaa oo meel dadka isku keenaysa researcherska cilmi baarayaasha hal abuurada kuwa sameeya creatorska innovatorska to nature ideas marka intee loo ideas kaas loo form gareena to the industry changing products and services kulligeen khadamaada u baahan adeeg kasta u baahan sector kasta u baahan bangiyada u baahan kulliya isku shirkadaha u baahan yani kulli corporate ka u baahan dawladda u baahan qofka marka oo shaqada wax bartay dadka aan wax baranin aan ugu yar maadaama ay ugu yaryihiin dadka wax bartaan ugu yar dadka illiterate ka badan
dadkaas marka anaga naga rabaan inaan fiid gareyno shaqana u abuurno dadka marka wax barta oo dhalinyarada ah innovation hub markii loo sameeyo oo laga tago waxaan la isku xirxiray jaamacad kasta isku xirto wax guud la sameeyo dawladana ay policies-ka ay fududeyso waxa imaanayo dadka intaan wax baranina shaqo loo abuuraa qof shaqo la'aan ma dhacayso oo graduate fursado waa jiraan laakiin waxaan u baahanahay inaan baxno oo soo waxayno waa idinku dheereeyay iga raali ahaada aad iyo aad ugu faraxsanahay jaamacadda SIU initiative-ka ay bilowday ay rise wax fiican waay laakiin 9000 wax dawladda sheegay ma ku laabanayo waxaan u baahanahay multi grant ma aragtay wax ah hadaati wuxuu dhahay cusub milyan la balan qaaday shirkadda sanadii hore milyankii wili ma dhamaanin you guys go and ideas keena lacagtaas idinka idin taala insha Allah aad ugu faraxsanahay guuleysta waa ku maasantiin